deegaanka Balacad oo ka tirsan gobolka Cayn waxa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi bilaadan oo ka socda maamulka Puntland oo hogaaminaya xildhibaan Faarax Sulub Jaamac Corneyl Cabdullaahi Saalax Maxamed Nadalo maamulka gobolka Cayn saraakiisha booliska Buuhoodle iyo waliba mas'uuliyiin ka socda maamulka Puntland oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka Balacad hadaba daawo sida deegaankaas maanta loogu soo dhaweeyay waxaan aad ugu madaxaad celinaynaa deegaanka aan soo gaarnay annagoo ah mas'uuliyiintii deegaanka u dhalatay ka soo wakiilka uga ahayd maamulka Puntland dawladda Puntland waxaan uga mahad celinaynaa annagoo ah wafti ka kooban anigu ah xildhibaan Faarax Sulub Jaamac taliyaha booliska dawladda Puntland taliyaha xigeenka dawladda Puntland ee booliska Cabdullaahi Saalax iyo wafti naga soo gaadhay hadda iyaduna degmada Buuhoodle oo ay kamid yihiin gudoomiyaha gobolka Cayn caaqil Maxamed Nuux dhammaan waxaanu idinku soo dhaweynaynaa oo idinka taxdiideynaa dadweynaha iyo neeshinka ku nool deegaanka Balacad oo ka tirsan gobolka Cayn oo ah deegaanka mid ah deegaanada aad ugu balbalaaran sida sharafta leh aad noogu soo dhaweyseen mudane iyo marwooyin dhammaantiin sidaas ayaan idinka mahad celinaynaa waxaan haddana idinku dhiibayaa oo salaan idin siinaya oo idin salaamaya Corneyl Cabdullaahi oo ah taliyaha booliska dawladda Puntland oo degmada Balacad iyo mudanayaasheeda marwooyinkooda wad salaamatihiin waxaan idinka mahad celinayaa sida fiican ee diiran ee aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanu salaan idinka sidnaa dawladda Puntland madaxweynaheeda maamulka oo dhan baanu salaan idinka sidnaa diiran oo wadaninimo waan ogahay inaad xoogaa tabanaysaan oo wax u tabanaysaan xagga Puntland iyo gobolka Cayn iyo inaad wax ka tabanaysaan waa ognahay laakiin insha Allah waxso iyo dacwo iyo waxaana aanu kula noqon doono dawladdii iyo maamulkeena hadaalad idinkana farbaa idinku godano waxaa la yidhi meesha waa la qabsaday oo waa la Somaliland gareeyay oo waxbaa la sheegayay laakiin annagu waxaanu idinku aragnay aan wadaniyad iyo Soomaali ahayn ma jirto sidaa darteed waynu isu imaanaynaa waana wada joognaa sidaa aad isaga daafacdeen wax walbana waa wax qarannimo iyo dawladnimo leh inaad nabadiinna ilaalisaan inaad ilaashataan deegaankiinna inaad gobolkiinna ilaashataan la gacan noqotaan la lug noqotaan gobolka Caynna waa idinka doonaya marka waa soo dhaweyntii waa mahadsantihiin waana diin mahadnaqaynaa ka baryaynaa ragayagii waanu dhaliilaynaa mid waliba annaga isu ka amaaninayn waabka alla ka qaad doorkiina barcadis ilaahay sukin man mid darajiriya mid aakhira jiriya mid adduunka joogaya mid madaxaba in beerkiina barcada la soo kala garabkiisa uu kana annagu muraarad dilaac baanu nahay waxaanu muraarad dilaac ka nahay xoolana ma rabno xalquna ma rabno ragga naagii dhalay baanu nahay ragga yagiba maalin walba la laayo oo la waraa oo la qaata sidaas aanu annagu muraarad dilaac kana Puntland waanu iska soo dhaweynaa inamadu meesha u dhasheen balse annaga waxay noo qabtaan ma jirto wax
qabashada waxa ugu wacan waa inay ragga wax u qabtaan oo ragga qayrkooda iska celiyaan oo ragga ay wax ka cunaan yiraahdaan garab iyo gaashaan bar منهن سومالي لاند ديغانا لما لهن waxaanu nahay daarood baanu nahay dadka nagu soo duulaya ee na doonaya ma doonayno waanu iska celinaa ilaa dumar iyo mana ilaahay baa mahad iska leh kale waxaan idinkula dardaarmayaa midnimo isku xidhnaan walaaltinimo ayaan idinkula dardaarmayaa ilaahay barwaaquu ina siiyey roob baa ilaahay inoo shubay mahaddaa ilaahay baa iska leh alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inaynu ku mahadnaqno cidna duulimaad kuma lihin cidna weerar kuma lihin duulimaad baa laynagu yahay weerar baa laynagu yahay deegaankeenii iyo sharafteenii iyo dalkeennii baynu la baxsan la'nahay ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa wixii inaga gardaran in ilaahay naga qabto ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inaynu innagana quluubteeda isu soo celiyo oo waxay naga gardaran aynu isku meel uga soo jeesanno ayaan ilaahay ka baryaynaa caafimaadkan ilaahay ka baryaynaa midnimaan ilaahay oo kaa barinay muwaafaqaan ilaahay oo kaa barinay cadowga iyaga ilaahay oo naga qabo ilaahay oo quluubteeda isu soo jeedi ilaahu sanadka sanadkiisa barwaaqo nagu gaadhsiiy waxaa inoo ballan haddii ilaahay idmo midnimo waxsan ballan islaamnimo inagoo aan cidda ku duulayn cidna weerar ku ahayn ciddii weerar inagu ah ciddii iskhilaafsan ilaahay isu soo jeediyo raggu hadduu buko dumarka inuu dumarka caafimaad qabee inay qabtaan dumarka tii leexata in raggu qabto in qofka kale uu qabtee khaldana walaalkiisa waxaa la yidhi walaalka hadduu daalim yahayna u gargaar hadduu madluum yahayna u gargaar qalad hadduu ku socdo